ma jiraan wax ka xanuun badan inuu qofkeena ogaado marka uu u dhowaado geerida inuusan marnaba ka mid ahaan jirin dadka noolaa. waad ku mahadsantahay daawashada videogan. Magacaygu waa Yuusuf Sakiin. Kusoo dhawow Selfie Goal. Marka hore waxaan doonayaa inaan kugu hambaliyeeyo guushan aad ku socotid. Soo ma jeedid adiga maalin ka dambeysa waxaad ku socotaa sidii aad ku gaari lahayd guushaada, sidii aad ku gaari lahayd hadafkaaga nolosha. Haddaba waxaan ku leeyahay augurio, waxaan ku leeyahay alf mabruuk. Sababtoo ah haddii aad sidaan ku socotid oo maalin walba aad daawatid fiidiyoyada noloshaada horumarinaya, fiidiyoyada noloshaada wax ku daraya, ogow inaad ka mid tahay dadka aadka u yar kuwaas oo dhigta adduunkan raadkooda iyo magacooda. Nasiib daro, dadka intooda badan adduunkan waxay ka dhintaan ama ka tagaan ayaga oo 20 jir ah, balse qabrigu waxaynu geynaa ayaga oo 60 jir ah. haa, qofku wuu nool yahay, wuu nagu dhex socdaa, balse wuxuu ka tegay mar hore. waayo looma jeedo wax uu soo saarayo, looma jeedo wax raada oo uu dhiganayo adduunkan, wax calaamad ah oo uu dhigtay looma jeedo. saa daraaddeed ogow, noloshu macnaheedu ma ahan qofka inuu hurdada ka soo kaco subaxii oo wax iska cuno, wax iska cabo, balse nolosha dhabta ah waxay tahay in qofkeena uga soo baxo noloshan sidii loogu talagalay. Alle subxaanahu wa tacaala adduunkan wuxuu noo keenay inaynu camirno, inaynu ka buuxino wanaag iyo khayraad, inaynu jiilka naga dambeeya ee gadaasheena imaanaya aynu uga tagno adduun fiican, adduun ay wax ka faa'iidaystaan, adduun horumarsan. Haddaba maxaa ka dhigaya qofkeena inuusan adduunkani dhiganin calaamadiisa, inuusan dhiganin magaciisa? Waxaa ka dhigaya runtii oo ugu weyn waxay tahay farxad la'aan. qofka hadduusan fahmin sirta farxadda wuxuu noqonayaa qof ku raali noqda nolosha caadiga ee uu isaga nool yahay. waa qof murugsan, walbahaarsan, saa daraaddeeda ma doonayo inuu noloshiisa horumariyo, inuu noloshiisa kobciyo. wuxuu ku raali noqonayaa xaaladiisa, wuxuu sugayaa oo keliya goortuu dhiman lahaa. adduunka wuxuu ku noqonayaa culays, wuxuu diyaar u yahay bes inuu ka tago. wax walba wuu nacayaa. saa daraaddeed waxaan ku hayaa maanta tallaabooyin kugu caawinaya inaad mar walba ku noolaatid farxad joogto ah, farxad aanan dhammaanayn. tallaabooyinkan waa 4 tallaabo. tallaabada koowaad, ha sameynin barbardhig. qofkeena marka uu sameeyo barbardhig oo nafsadiisa la barbardhigo qof kale wuxuu noqonayaa qof aan faraxsanayn. suu ku farxayaa qofkan? waayo mar walba wuxuu fiirinayaa oo keliya waxa dad kale ay sameynayaan, waxa qof kale uu sameynayo, waxa hebel uu sameynayo, waxa ay heblaayo sameynayso. mar walba wuxuu ku mashquulsan yahay qofka kale, nafsadiisa uma jeedo. haddaba mid ogow, qofkeena waxaa mashquul ugu filan nafsadiisa. qofkan hadduu ku mashquulo nafsadiisa wuxuu helayaa waxyaabo badan oo uu ku mashquulo. saa daraaddeeda qaabka ugu fiican ee farxadda lagu heli karo waxay tahay inaynu anaga isku mashquulno, sidii aynu nafsadeena u horumarin lahayn, u kobcin lahayn, wax u baran lahayn, mar walba ugu dadaali lahayn horumarin joogto ah inaynu ku hayno nafsadeena. markaas waxaan noqonaynaa dad farxad ku noolaada. waayo dadka kale adiga isku nutihiin, adiga qofna kula mid ma aha. wax adiga lagu talagalay qof kale ma sameyn karo. alle subxaanahu wa tacaala adiga wuxuu ku siiyey mawhibooyin, waxyaabo adiga gaar ku ah. dad kale oo dhan waa ka duwan tahay, waxaas adiga oo kale ayaa sameynaya. haddaba ha ku mashquulin waxay dadku kale ay sameynayaan. maalin dhaweed ay ahayd aan akhrinaya fariin iga soo gaartay qof, wuxuuna igu yidhi runtii waxaan dareemayay inaan ahaa qof maaragtay aan waxba adduunkan waxa loo keenay aan ogeyn, qof lunsan. waxaan ahaa qof, waxaan su arkayay inaan ahay qofka ugu liita dadka adduunkan ku nool oo dhan. waxaan sikadiisa ku arkay fiidiyoyada. markii aan bilaabo inaan daawadana hadda waxaan dareemayaa inaan ahay qof qiimo leh, inaan sameyn karo wax walba. waad mahadsan tahay. waa sidaas, qofkeena hadduusan asagu dareemin qiimihiisa ma noqonayo qof faraxsan, ma dareemayo qiimaha adduunka uu leeyahay, qiimaha nolosha ma dareemayo. tallaabada labaad waxay tahay fiiri waxaad haysatid. qofka marka uu ku mashquulo oo uu fiiriyo waxa uu haysto, nimcooyinkan badan ee uu haysto, wuxuu noqonayaa qof ku mahad celiya. marka uu ku mahad celiyana wuxuu helayaa wax badan. qofkeena si uu u helo wax dheeri ah waa inuu ku mahad celiyo inta uu haysto. saa daraaddeed alle wuxuu noogu nimceeyey nimcooyin badan oo aan la tirin karin. haddaba aynu ku mashquulno, aynu fiirino nimcooyinkan badan. alle wuxuuna siiyey wax walba, soo maahan? waxaynu haysanaa gacmo, waxaynu haysanaa maskax, waxaynu haysanaa indho in wax ku aragno, wax walba ayaynu haysanaa. intaas xisaabin kartid.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سما نعوينك الله هدو قف كان كم مشغول أو يرهدوا حسابنا يا كما جاريون حسابه صادق فرحد وحيت هاي إنه كم هذا علنه وحينه هيسنه مركز إنه هيلينا وحبذا مدة سدحاد وحيت هاي جعلوا نلاشا ما حد لنا إنه سبب وتهاي ذات كان إزدليا wax walba qarxinaya dadka kalena dilaya aan ogoleen noloshu aan ogoleen in ayaga noolaadaan dad kalena ay noolaadaan waxaad u leeyahay sababtu waxay tahay waa farxad la'aan ma faraxsana waa dad nacab nolosha waa dad aan gudahooda ku jirin wax farxad ama dareemayaan wax walba way nacab waa dad quustay waxay ka quusteen nimcada alle waxay ka quusteen raxmada alle waxaynan dareemin hadafkii loo keenay adduunkan haddii ogaan lahayd adduunkan in loo keenay inay dhisaan ee ma aha inay burburiyaan haddii ay midaasi fahmi lahaayeen waxay raadin lahaayeen sida ay geed u abuuri lahaayeen waxaa jira xadiis aad iyo aad aniga mar walba aad u jecelahay oo subana uu yiri wuxuu yiri qofkiina haddii qiyaamaha ay dhacdo oo gacantiisa uu ku haysto geed timir ah yuusan dhimanin asagoon geedkaas tallaalin allahu akbar waxay laga fiiri meeshaan fiiri nolosha subana salaasan sida u jecel yahay nolosha sida noogu boorinayo inaynu nolosha qiimaheeda siino soo ma jeedid jeclow nolosha yani fiiri hadda qofkaas qiyaamaha wuu dhaqaaqayaa laakiin geedkan uu abuurayo uu talaalayo asaga kulleyba uu dhimanayaa laakiin laga yaabo qof kale inuu ka faa'iidaysto geedkaasi waa taas mid aynu doonayno ee maaha inaynu isdilno inaynu nolosha ka rajo beelno inaynu doonno dadka inaynu baabi'ino si aan loo noolaanin jeclow nolosha si ay kuu jeclaato talaabada afaraad waxay tahay u dhowow in badan alle subxaanahu wa tacaala qofkeena marka uu u dhowaado in badan alle subxaanahu wa tacaala farxad oo dhan meesha ayay taallaa midna ogow qofkeena mar walba marka uu u dhowaado alle subxaanahu wa tacaala wuxuu noqonayaa qof naxariis badan qof maaragtay dadka oo dhan u tura dadka oo dhan la raba inay noolaadaan dadka oo dhan la raba wanaag waayo alle subxaanahu wa tacaala waa naxariis oo dhan waa wanaag oo dhan waa khayr oo dhan soo maaha marka qofkeena si uu farxad u helo si uu guul u gaaro waa inuu alle u dhawaadaa in badan qofka ugu dhowe waxaan sheegaya dhawaanshaha dhabta ee ma sheegayo sida dadka qaar oo kale ay ku leeyihiin alle inuu dhownahay haddana dadka baabi'inaya kuwaas alle weli ma fahmin alle uma dhawaanin kuwaas runtii waayo qofkeena hadduu alle u dhawaado wuxuu noqonayaa qof dadka kale ka naxariis badan dadka kale u tura dad kale u dhimriya dad kale la jecel guusha dad kale la jecel wanaaga mar walba saas daraaddeeda aynu ku dadaalno inaynu in badan u dhowaano alle waayo guusha oo dhan meesha ayay jirtaa farxadda oo dhan meesha ayay jirtaa wanaag oo dhan meesha ayuu jiraa mar walba aynu u dhowaano alle subxana wa tacala waxaynu noqonaynaa dad dhigta adduunkan calaamadooda dad uga taga adduunkan magac iyo maaragtay calaamad wanaagsan iyo raad wanaagsan oo ay ka faa'iidaystaan dadka ka dambeeya waxaan rajaynayaa 4 tallaabo inaad ka faa'iidaysatid oo aad ku dabaqtid noloshaada kadibna waxaad noqonaysaa qofkii aad doonaysay weligaagaba inaad noqotid ku noolow nolol farxad iyo reen leh ogowna dooro noloshaada dhigna magacaaga waayo waxaa lagu keenay adduunkan inaad guulaysatid farxadna ku noolaatid waad mahadsan tahay